xisbiga mucaaridka ee ucud ayaa waxa uu maanta shaaciyay in xarunta dambi baadhista Somaliland looga yeedhay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ucud Maxamuud Cali Saleebaan Ramax musharax ku-xigeenka xisbigaasi Professor Ahmed Muuse Abyin oo warbaahinta la hadlay waxa uu cadeeyay in dacwadaasi xogaya Ramax uu ku soo oogay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax Professor Abyin waxa uu dacwadda gudoomiye Baasha ku sifeeyay in ay tusaale u tahay in dalku uu galay xaalad dictator isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri كاوي تاريخه تهي ديسمبر 9 كيدي 2019 waqtiga hore waxaanu ka nimay xarunta CID da halkaas oo looga yeeray xogayaha arrimaha gudaha gobolada degmooyinka xisbiga ucid Ramax Saleebaan hayste iyadoo uu soo dacweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland kuna soo dacweeyay anagu aanu aragno xisbi ahaan weerarka gudoomiyuhu baryahan uu caadaystay ku qaado xisaabta mucaaradka iyo madaxdooda mas'uuliyiintooda gudoomiyaashooda yaan la iga jawaabin oo juuqyaan la oran aniguna waxaan doonaa aan ku hadlo dacwad noocaas anagu aanu fahanay ayaa aanu tagnay CID da waanuna u warranay waanuna ka jawaabnay su'aalaha la weydiiyay arintaasi way iska cadahay waa calaamadaha lagu garto totalitarian states waddanku marka uu galo xaalad dictatorship iyo totalitarianism oo ah arjuuqde intimidation handadaad iyo caga jugleyn iyo harassment siyaasiyiintu inta waa hadlayaan kuwa muxaafiday kuwa mucaaradaba waa la isu jawaabayaa media wax la isu marinayaa axsaabta mucaaradkuna waxay u dhisan tahay inay kristaas garayso oo toosiso xukuumadda laakiin taa in lagu soo dacweeyo oo marba dacwo yar meel la geeyo oo CID da laga doonayaa la yiraahdo arintaas waa intimidation waa caga jugleyn maalin walba waxa Somaliland iyo shacabkeeda lagu dhaga barjaysiyaa dhagaan lagu dilaaciyaa 30 sano 40 sano ka hor rejiim jiray ayaa dhibaatooyin geystay dadka caburin jiray xidhi jiray handadi jiray taariikhu yuciidu nafsaha dhaqanka maanta socda miyaanu ka ahayn miyaanu ka caban karnaa waxaan leeyahay wama la yukarrim nafsahu la yukarrami gudoomiyuhu isaga ayaa maqaamkiisi hoos uga dhacay isaga dhaxda baashay khilaafkii dhex yeelay axsaabta mucaaradka iyo xukuumadda waxay ahayd sida dacwadiisa ku qoray wuxuu ku andacooday gudoomiyuhu waxaan ahay ninka saddexaad ee wadanka xasaanad baan huwanahay karaamaan leeyahay kanaan leeyahay wama la yukarrim nafsahu la yukarrami qofkan iskaraamayn cidna ma karaamayso gudoomiyuhu ummadda dhex inuu u ahaado ayay ahayd oo aanu dhex dabaaran khilaafkan dhex yaala xukuumadda iyo axsaabta ku saabsan doorashooyinka iyo wax la midka ah sagaal soo istaagay media axsaabtu xasaanad male shacab weeye macnaha si la doonaa laga yeeli karaa marka gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye naftaada karaamay markaas lagu karaameynaya xasaanadaada iyo maqaamkaaga iyo jagada aad sheegatay markaas lagu qiimeynaya waliba dhaqanka siyaasiga ee foosha xore maalmahan bilaabmay waxa weeyaan shirgudoonkii baarlamaanku inuu soo adeegsado hooligans dad loo yaqaan ama dibjiro anigu parliamentarian ku sheegi maayo la yaqaan oo la garanayo maalin walba cayl soo taagan meediyaha oo xisbiyadii ay ka soo baxeen caayaya iyo mas'uuliyiintoodii dadka noocaas ah u fadhiya Somaliland garan maayo ayaa darada inta leeg Somaliland iyo shacabka Somaliland wuxuu ku mutaystay dad noocaas inay matalaan oo waliba taxpayerska iyo cashuur bixiyaasha masaakiinta lacagtoodii halka ay ku fadhiyaan way cidna ma matalaan waxaanu ku sifayn karaa waa welfare waxa ay qaataan welfare weeye waayo cid ay matalaan ma jirto iyo sharci ku fadhiyaan toonna ta haddii aan ka gudbo anagu xisbi ahaan iyo guud ahaanba xisaabta mucaaradku waxaan aragnaa inaan xaq u leenahay inaan ka jawaabno eedaynta naloo soo jeediyo media naloo soo mariyo inaan criticize garayno aan toosino xukuumadda inaan u jawaabno ciddii eedayn aanan lahayn iyo dhaleecayn been abuura dusha nagaga tuurta haddii cid la xidhayo ama cid loo yeerayo waxa mudan cidda fidnada kicinaysa waxaynu ognahay taqriiban 2 usbuuc ka hor nin dhaqan sheeganay inuu soo fadhiistay meediyaha uu sun sii daayay sun yani si walba u hadlay yani probably wuxuu ku dhawaaday stop short wuxuu ku dhawaaday inuu yiraahdo reeraha iyagu iyo reeraha kale hays dileen cid uma yeerayso cid xidhi mayso xabsi dheer buu ku mutaysan lahaa haddii sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam uu jiro waxaad moodaa Somaliland sharciga in la laalay
in aynu ku soconno wax walba inay bannaan yihiin wax walba la iskula kacay waxa dhiman kaliya waxa weeyaan dadka in la xabadeeyo oo la laayo oo la islaayo marka dhaqankaas aad baan u cambaaraynaynaa foosha xun in gudoomiyihii baarlamaanka oo ah ninkii saddexaad ee waddanka uu siyaasi mas'uul xisbi oo miidiyaha u jawaabay oo kaga jawaabay eedeymo loo soo jeediyay xisbiga inuu dacwo iyo xeer ilaalin u maro oo si ay uga yeedho arrin fool xun waxaana tusinaysaa runtii dawladnimadii Soomaaliland iyo institutionska ay baaba'een ayaan darada haysata iyo waxa aynu doonaynay iyo ictiraaf iyo ummadina ay aragtay iyo waxa aynu qabsanay 30 years inaynu god ku ridana maanta taa ayaa runtii muuqata aad baan uga xumahay runtii intaas ayaanu maanta u soo istaagnay halkan inaanu la wadaagno miidiyaha dacwooyin baan anaguna xareyn doonaa oo kiisas ayaanu furi doonaa maxaa yeelay haddii dalaysdayn waayo ninkii tortuura wax isna waa la tortuuraya taana waxa weeyaan waa digniin aan u sii jirayno cid kastoo naftooda ay qurxiso inay siyaasi media ka hadlay shay caadi oo siyaasadda ka mid ah intimidation iyo dacwo beena iyo hanjabaad lagu aamusinay saana lagu aamusi maayo waa la hadlaya Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa